أنا ذاتك قار أو علينا وإيه لكن علي مع الحسين بالي هذا قترت أصاب ذاتك هيان dad badan ayay dhibaateen anaguna markaan fahmnay dhibaatada dalka ka jirta oo ay ku hayaan nafteena ay nabadgelin maalkeena ay nabadgelin ayaanu garan inaan iska dhicino diinteena iyo dadkeena aan difaacno waxa ay fala inaan la falno ayaan u go'aansanay qalabka si u sitaan una qaadano si isu difaacayaan iyo si ka sifaacna isu difaacno aynay dulaysan aniga hadda kula hadlaya 30 geela ii joogtay 5 neef ay hartay inta kale ayaga qaatay wax sharciina kuma qaadan xoogay ku qaateen sida darteed kaarid ma leh sababta qatar u yahay dadku intuu iska reemiga iska habacsanaa waxay barteen dhuumaalaysiga iyo meelaha qatarta ay dadka ay ku dhabar jabiyaan waa la fahmay waana laga badiyay waxaan iskugu dubareednaa oo u diyaarsanay mar haddii naftaada iyo maalkaaga loo yimaado fadhido damba male sharciguna wuxuu qabaa inaad naftaadana difaacatid maalkaagana difaacatid ee adoo carray aan dhabarka laga dilin shariicada islaamka inaan kor yeelan rabnaa diinta ilaahay qofkii raba inuu dulmi ula yimaadana ma ka yeeleyno ما شاء الله وحوي تاسمع هم بهتا إن الغصة درس شباب مر هدي وبنايستي دت كان أو هدف ديمات كده بخي دت كان أو لفهم يدينته وحانو قرناي أو نسكوا عقل جيشنا أو نديار قرون إن دلك يدتك يدينته إن ندفعنا نفتنا أهرنا مالكنا أهرنا مسكعنا أهرنا wax kasta oo wax noogu hagaagayaan aan ugu diyaar garowno sida bini'aadamku ula dagaalano sida gobolada loola diray ula dirino inaan iska suulino dalkana aanu ugu noolaano ku dhaqanka shariicada islaamka diinta islaamka aan ku dhalanay ku dhimanayna ku dhaqmayna ilaahay waxaan weydiisaynaa diinta islaamka inuu nagu nabadgeliyo oo ku dhimanno oo ku soo baxno oo nagu nooleeyo biin ilaahay karim ayagana sida ay noo dabaqayaan waa ku fahmnay aanu iska cayrino awood iyo tayo intaba waa u leeyihiin insha Allah taala waxaan soo waraysanaya wiigiisa meesha ku dambayso haddii ay galabtan ila taagayna waraysi ka qaadeen dhahayn laakiin haddeer wixii aan keenaan soo bandhigayna